qodobada wararka kuwada ugu waaweyn waxaa ka mid ah dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed oo xalay ka dhacay deegaanka Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag. maamulka Koonfur Galbeed oo digniin u diray ciidamada dawladda iyo kuwa maamulkaasi. faahfaahin ka soo baxaya dhalinyaro xalay lagu dilay degmada Dharkiiley ee gobolka Banaadir. madaxweynaha Puntland oo kulamo looga hadlay amniga ka wada magaalada Gaalkacyo. ra'iisul wasaaraha Hindiya oo qarka u saaran inuu ku guuleysto doorashada dalkaasi. iyo ilmihii lixaad oo ku dhintay xabsi Mareykanka uu muhaajiriinta ku xiro. markii faahfaahsan dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeleed ayaa ka dhacay deegaanka Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag waxaana ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. wararkii ugu dambeeyay oo aanu saaka ka helayno deegaanka lagu magacaabo Ceel Afweyne oo kamid ah deegaanada ku yaala gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xalay uu halkaasi ka dhacay dagaal u dhaxeeya laba beelood oo kamid ah beelaha walaalaha wadaaga ah ee deegaankaasi ku dhaqan. dagaalka ayaa la sheegay inuu salka ku hayo murno ku salaysan argoose iyo aanooyin qabiil ah oo soo kala dhexgalay dhinacyada halkaasi ku dagaalamayay. wararka ayaa intaasi waxa ay ku darayaan in dagaalka uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray beelaha halkaasi ku dagaalamayay sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka ah oo gudaha warbaahinta la hadlay. horey deegaanka Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag waxaa ka taagneyd xiisad u dhaxaysay ciidamada Puntland iyo Somaliland kuwaas oo ku sugan duleedka deegaanka Yubbe oo kamid ah deegaanada ku yaala gobolka Sanaag. lamana garanayo saameynta ciidamada Puntland iyo Somaliland ay ku leeyihiin dagaal beeleedka ka dhacay deegaanka Ceel Afweyne ee labada beelood oo walaalaha ah u dhaxeeyay. si kastaba ha ahaatee odayaasha iyo waxgaradka ka soo kala jeeda dhinacyada halkaasi ku dagaalamay ayaa wada saansaan nabadeed oo ay ku doonayeen sidii ay ku kala dhexgeli lahaayeen beelaha imika xarguuftooda ay dib ugu soo cusboonaatay deegaanka Ceel Afweyne. odayaasha ayaa sheegay iyadoo lagu guda jiro fadliga bisha barakaysan ee Ramadaan awgeed beelaha halkaasi ku dagaalamay loogu baaqayo inay colaadda joojiyaan si dadku ay nabad ugu afuraan nabadna ay ugu soomaan. Koonfur Galbeed ayaa digniin u diray ciidamada dawladda iyo kuwa maamulkaasi. hadalkan waxaa sheegay wasiirka garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed waxa uuna ku eedeeyay ciidamada inay dilaan dadka shacabka ah. wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa digniin culus u dirtay ciidamada caadaystay dilalka dadka shacabka ah iyo kuwa dhigta jidgooyooyinka deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. wasiirka garsoorka iyo cadaaladda Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Xasan John ayaa sheegay in la dili doono askarigii dil ula kaca u geysta qof shacab ah ama askari kale sidoo kalena ciqaab adag uu mari doono askarigii lagu hela in uu ku lug leeyahay jidgooyo uu dhigto dad shacab ah isagoona ku sababayay in xilligan ay soo saaraan go'aankan adag ay tahay in ay bateen dhibaatada iyo tacdiyada ay geysanayaan ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan Baydhabo iyo hareeraheeda. lahala abniga cadaaladana meesha ku hayanaha sareynta sharcigana meesha ku haysaha in awood iyo obsala dareem awoodda dawladda le habo awoodii sharciga dawladda sharci lagu obsada oo hayna nafta bini'aadanka iyada raqiisanagadaas sanafta bini'aadanka qaalanka wala may go'aansanayeen in oo ilaahay baqalka weelayeen in oo sharcigi la fuliyo oo haylanki landila oo sab bereer ka sendila in maxkamado go'aan ku deeran waana la dilay go'aankaas nool iska qaadaday min wasiir ilaa odayadii dhaqanka oo Koonfur Galbeed saaxiyaal soo kumid hayeen sidaas oo kala dhacaga iyo may reebanaha in oo xuntada dadweynaha la tagrafala ee guud ahaan mayba dareemanaha in oo jidgooyooyinka iyo xuntada oo bulshada la badbaadiyo jidgooyina lan soo bina langna landilna. barihii ugu dambeeyay waxa ka dhacay deegaano badan oo hoostaga gobolka Bay dilal qorsheysan oo u badnaa kuwa aan qabiil ah iyo dilal kale oo sababayay jidgooyooyin ay dhiganayeen ciidamada dawladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. faahfaahinana waxay ka soo baxayaan dhalinyaro xalay lagu dilay degmada Dharkiiley ee gobolka Banaadir. degmada Dharkiiley gaar ahaan daarta Xaaji Gaabo waxaa xalay ka dhacay dilal loo geystay laba qof oo shacab ah kuwaas oo la sheegay inay ku sugnaayeen goobo ganacsi sida ay sheegeen dadka deegaanka.
kooxda dilka u geysatay labada ruux ee shacabka ah ayaa waxaa la sheegay inay goobta ka baxsadeen kuwaasoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn halka ay ka tirsan yihiin labada ruux ee la dilay ayaa waxay wararka sheegayaan inay ahaayeen ganacsato oo si weyn loogu yaqaano degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir goobta ay wax ka dhaceen waxaa durbadiiba gaaray ciidamada ammaanka iyagoona halkaasi ka sameeyay baaritaano ay ku baadigoobayaan kooxihii ka dambeeyay dilka labada ruux ee shacabka ah dhanka kale ciidamada ammaanka ayaa waxay xalay baaritaano ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir kadib markii ay ku soo bateen degmadaasi dilka loo geysanayo dadka shacabka ah tan iyo markii la gudugalay bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dilil kuwaasi oo loo geystay dad shacab ah iyo shaqaalaha dawladda isla markaana ay ka dambeeyeen kooxo ku hubeysan bastoolado ammaanka magaalada Muqdisho ayaa u muuqdo mid faraha ka baxay sida ay sheegeen dadka ka faalowda arrimaha amniga marka loo eego qaraxyada iyo dililka ka dhacaya gudaha magaalada Muqdisho shalay oo u dambeysay waxaa qarax uu ka dhacay bar kontarool oo laga ilaaliyo madaxtooyada Soomaaliya kaas oo ay ku dhinteen ku dhawaad 20 qof halka tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen Puntland ayaa waxa uu weli kulamo looga hadlayay amniga ka wada magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweyne Dani ayaa waxa kulan uu la qaatay dhalinyarada ku nool waqooyiga gobolka Mudug sidoo kale madaxweynaha Puntland oo ka hadlay doorka dhalinyarada ee horumarinta dalka ayaa sheegay in dhalinta Puntland ay hormuud u yihiin horumarka dhan walba ee Puntland ay gaartay waxa uu xaqiijiyay in Puntland ahmiyad gaar ah siinayso dhalinyarada madaxweynaha Puntland ayaa shacabka gobolka Mudug waxa uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan tallaabo walba oo gobolkooda ku noqon kara mid xasiloon shalay ay ahayd markii magaalada Gaalkacyo kulan ay ku yeesheen madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug kaasi oo looga hadlay arrimo badan oo ku saabsan xaaladda dalka wararka dibadda ayaa inoo soo socda ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa ku horeeya malaayiin cod oo la tiriyay doorashada 6 isbuuc ka socota Hindiya natiijada gobol badan oo ay ku jiraan kuwa sida adag loogu loolamay ayaa muujinaysa in xisbiga uu hogaamiyo Modi ee BJP la yiraahdo uu helay 100 milyan oo cod welise waxaa dhiman tiran codadkii laga dhiibtay gobol badan weli xisbiga mucaaradka ee hogaamiyo Rahul Gandhi ayaa ka hadlay natiijada hordhaca ah balse meelaha looga guuleystay waxaa ka mid ah gobolka Maharashtra oo dadkii ay la egyihiin ama dadkiisu ay la egyihiin dadka ku nool dalka Mexico waqti ayaa ka harsan xilliga loo qorsheeyay in guddiga doorashada uu ku dhawaaqo natiijada doorashada Hindiya ayaa doorashada ugu weyn uguna dheer dunida waxaana u qalma inay codeeyaan 900 milyan dad gaaraya ugu dambeyntiina gabar 10 jir ah oo ka soo jeeda El Salvador ayaa ku dhimatay xabsi ku yaala Mareykanka sanadkii hore waa kiis aan weli la warin oo tirada caruurta ku dhimatay xabsiyada Mareykanka ka dhiga 6 caruurtaas waxa ay geeriyoodeen muddo 8 bilood gudahood ah gabadha yar ayaa qabtay xanuun wadnaha ah waxayna dhimatay bishii September ee sanadkii hore sida ay cadeeyeen saraakiil ka tirsan kuwa xuduudaha u qaabilsan Mareykanka magaceeda xilliga iyo marka ay gashay Mareykanka weli lama oga laakiin mudanayaal ka tirsan dimuqraadiyiinta ayaa ku dooday in baaris lagu sameeyo geerida gabadhan yar madaxweynaha Mareykanka ayaa se ku adkeysanaya ballanqaadkiisii ahaa in xabsiga uu dhigi doono muhaajiriin walba oo ka soo gala xuduudda Mexico